بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت رنتي ومالين وين بريهان دقالهم كجرني ددالهم كجرني هلجنا لوجري أيضا هلجن كميتا سومالي إني حروذو إني مقعد ريالته إني ماشى أي حق أولى هاي أو باش عالم كجرت الدنيا ده إني كسر نقطة مركل استاكتو شقدا لأن يردان أي سوق قبتين أو مقع سومالي أي كسر قبتين أو مقع قرن نمو أي كسر قبتين وحي كميتا هاي سو علين تا سومالي اللي كسر علين هاي إني دبوا استاكتو ماشى أي عالم كحق أقول هاي محان ربا inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhalinyaradan madaxdii hogaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaskaashi ah uga soo shaqeeyay ee maanta meesha aan taaganahay hawsha soo gaarsiiyay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyay maanta inteena waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan waxa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyay dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maraga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso dhalinyaradan meel ay keeneen tartankii dadka Soomaalida dhexdeeda ka dhixay inta kor u qaadeen ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale waxaan u baahanahay waa intaas dhaxdeena tartamada yaryarka xafiiltanka ay yaalo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka qaaradan joognaa barina inaan caalamka gaano dhalinyaradan waa da'yar yihiin maanta aduu waxaan rabaa dadkeena maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayna waa noola qaar ayaga kamid ah ilaahay idankiis oo magaca Soomaaliya iyo calankaas buluuga ah haddana maalin maalmaha kamida koobka adduunka ayagoo u tartamaya geeyay in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay lianna hadda juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil aha ay ka maqnaayeen oo meeshan ku soo gaaray dadaal shakhsi ah iyo dadaal shakhsiyaad iyo dadaal dawladooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyay berri ilaahay idankiis markii dawladooduna soo tabaraysato adduunyada Soomaaliya ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato inay meeshaas meel ka sarreysa ee caalami ah ay geey karaan boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay maalin maalmaha ka mid ah ilaahay idinkiis waan arki doonaa hadii alla yiraahdo oo aan dheerayn waliba dhalinyarada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkan ay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadawga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyeynaya waxa aad u gogol xaareysaan oo aad dhiiggiina u hurteen oo aad naftiina u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay saddexda waxyaabood oo maanta qof kasto Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka dadka iyo diinta intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay qaran ma jiro dal haddaadan lahayn qaran ma jiro dad haddaadan lahayn qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaanay jirin ee xoola duurka iska yaacayo kale ay ahaadaan qaran ma noqonayno qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yiraahdo oo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah qaran waxaan ku nahay inaan diin iyo caqiide aan leenahay aan aaminsannahay oo aan ka simannahay oo ilaahay waliba nagu galladaysto nagu nicmaystay dhammaanteen inaan muslimiin nahay
رحمة إلهي ونسية بالآجا دلك أن دجنا هاي ماشي وكويا لا وناجي الدنيا كلها بالآجا نمعذا يا خيرك بر يا بير يا بط سدح ذبا كلان صدي بالآجا سو إنان إلهي كشكر إن كحمدنا معها waxa intaasoo dhan cadawga ku ah ee diinti cadawga ku ah ee dadki cadawga ku ah ee dalki cadawga ku ahna soo inaan meel iska saarno maaha yaa u wakiishay diinti inay wakiil ka yihiin yaa u wakiishay koox yar oo khawaarij ah in ay dadkan iyo dalkan iyo diintooda sida ay rabaan ay ka yeelaan dadka ay bahdilaan ay duleeyaan si sharci darraa oo shareecada iyo diinta aan waafaqsanayn in ay dadka ula dhaqmaan aayaadkii ilaahay uu soo dejiyo munazalka ahay fasiraadoodii iyo meeshii ay lahaayeen inay inta ka leexiyaan ay cudur baas oo yaro ayaga maskaxdooda ku jiro ay ku leexiyaan wakiil noogama aha ummadda wakiil ugama aha dalkan iyo dadkiisa wakiil ugama ilaahayna wakiil ugama aha inaan iska diidnaan xaq u leenahay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo oo aanan ka caajisi doonin Soomaaliyeed inta aniga ila da'da ahay waxaan maraynaa maalintii dawladna ugu dambeysay 32 sano dawladan lahayn 32 sano ka hor saan waay waa xuntahay intay laada iyo shuuci waay intay ka dhacday iyo kan iyo dictatoriyad waxa soo dhan waa muwasafaad waay laakiin dawlay ahayd waan weynay 32 sano ka soo wareegtay dhalinyaradan iyo hortaagani ma oga ma joogin maalintaas iyo maalmo badan oo ka dambeeyay oo dib badan la soo marayba ma ayan joogin laakiin maalinba maalinaa ka darnay dagaal sokeeye dad eheloo isdilay dad eheloo kala guuray dad eheloo ayagu maxaan ku dhibaato isu geystay wax la yaqaan oo adduunyadu ay nala wadaagtay waay niman wixii naga dhaxeeyay maxaa naga dhaxeeyo koow diinta islaamka boqolkiiba boqolaan muslimiin qofkaas meesha baray waa Soomaali hadii lagu yiraahdo assalaamu calaykum ad war uga bilaabay wariya iska waran ad war uga bilaabay sidaan u midaysannahay nimanka noo soo dhaxgalay marka diintii ummadaan intay halka meel oo ummadda waxa laga yaabaa meelo kale hadii soo reer hebel isma galaan inaan dhahno reer hebel waxaan warkooda ma rabno inaan dhahno waxyaabo badan oo kale inaan diido meesha aan la diidi karin oo aan ka midaysannahay oo halka batan oo hadii la riixo aan wada daarmayno ama wada damayno waa diinta islaamka waay meeshaas ay naga soo galeen 15 sano ay nagu qaadatay inaan fahamno waxa meesha noogu jiraahi inay masiibo yihiin oo magaca diinta wata diin inaanay ahayn dad inaanay ahayn bahalla ay yihiin arxan laawayaal ay yihiin dadka yaani kun iyo boqol iyo kumana u dilaayo inay yihiin haddana aayaadka ilaahay munazalka ay daliishanayo isma galaan 14 Oktoobar maalin dhawaad la xusayn soo marnay wixii dhacay iyo aayad quraana inuu qof soo daliishado isma galaan meel islaama galaan dadkaas waa dadkan isahay waana la soo joogeen 15 sano inala joogaan haddii aan marka 15 sano sidaan u dhaqmi jirnay sidaan u fikiri jirnay sidaan uga cabsi jirnay sidaan maxaan ku ugu khaldami jirnay sidaan maxaa haddaan ku sugnaano 15 sano iyo 15 sano kale aan ku sugnaanayna ilaa ay naga cirib tiraan marxaladii aan ku sugnaa jirnay waa diidnay inaan ku sugnaano sidaan u dhaqmi jirnayna waa diidnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa marxaladii aan ku jirnayna waa ka imaanaynaa sidii aan u dhaqmi jirnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa wixii aan heli jirnay wax ka duwan si aan u helno 15 sano la soo dhaafay waxaan helaynay hebel aawe waa la dilay maxaa loo dilay doorasho ka qayb galay hebel aawe waa la dilay maxaa loo dilay masaajidka uu maalin ka hadlay hebel aawe waa la dilay maxaa loo dilay asaas yeela la yiri warku kuma sugnaa karno meeshaas waa diidnay wax ka duwanaa la nimiday wax ka duwan oo la nimido ugu horeeyo waa inaan dhahna maya waxaad wadiin waa qalad raali ahaada baxa
taga joojiya annaga ayaga marka maxaan isku haysanaa waa laga yaabaa in badan oo kamid ah Soomaalinimada naga dhaxayso waa laga yaabaa in badan oo kamid ah inay xoogaa yar oo maxaan ku raadahay duruufo yar ay meesha u galeen oo laakiin diintii ay wali ay muxuu ahay ay dareemaan leeyihiin ay ayaga dhan waxay siihiin Soomaalinimada waa naga dhaxaysaa islaamnimadu waa naga dhaxaysaa laakiin maxay nooga dhaxaysaa sida ay tahay nooga dhaxaysaa diinta tan saxda ah naga dhaxayso wada leenahay Soomaalinimadana midda saxda ah oo Soomaaliga kale walaalkiis inuu yahay dalkan iyo dadkan iyo waxaan uu la leeyahay ninka qirsan ee aqbalsan ninkaas Soomaalinimada naga dhaxaysaa diidnayo ogow dalka yaga ninkii doonayo hadda kuwii bariga heestaa la alifayo la qaadayay kuwii dalkeena doonayay sababtay u doonayeen waa naqaana cadow aan Soomaali ahayn oo dibadda ka yimid oo soo duulay oo dalkii inuu qaato rabo yuu ahaa kuwaanoo maxaa tihiin dal kala maad leedeenood u qaadaysiin kuwaas barigaas waa garanayn dalay lahaayeen dalkeenana inay qaataan ay ku darsadaan ay rabeen war kuwaanoo inta noo qaadaysaan noo wadaan halkan inay nagu baabi'iyaan guryaheen diinteena dhaxdeed dadkeen masaajideen inay nagu dhax baabi'iyaan waaye niman hadda dalkii inta naga qaato meel kale la degayo oo dhul kale iyo dawlad kale iyo meel kale ku darsanaya ma ah waa diidnay sidaan taas horeba u diidnay waa diidnay wixii xun oo dhan waa diideynaa shabaab waa xun yihiin fikirkoodu waa xun yahay lama aqbali karo bini aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada ka soo horjeeda dadka dunida uunka ilaaheeyo dhan ay cadow leeyihiin cadowna u yihiin annaga Soomaaliya nahay dalkan Soomaaliya la yiraahan leenahay waa diidnay wixii hore ku noolaan jirna waa diidnay sidii hore u nooleen waa diidnay nolol fiican عز iyo karaamo xaqiiqo toosan inaan ku noolaanaan rabnaa ma rabno inaan ku noolaano dulinimo dabba waa ka nimiday dhalinyarada geesiyaasha ah mar kale waxaan leeyahay geesiyaalaad tihiin